koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan warraba wiilka abtiga waxaana maanta waa joogaaye warkanii warramadahaya xagu ka soo carraabay war arabsiyow ka yimid abeesa ha ku cuntee war meeshuu doonaa ka yimaaya anigay dhegaysaa inay warrameen buuqii ayaantaan taagnaa ee ka dhashay arrintii qalbadhagax nimayo waa la soo damiye waxaana la leeyaha baarlamaankaa damiye oo hoos u dhigay aniguna waa aaminsanahay inay sidaas tahay sababtoo ah baarlamaanka waxa la yidhi guddi baa u saareen guddi baa loo saaray haddaad maqashana afdaboolan dahab ayaa ka dambaysa marka waana wereeraya buuqaasiye hanaga dabo afdaboolan dahab aan iska jirno war ani warsiinhaaye walaagaas walka hadalay mayba ka hadalay guddoomiyaha baarlamaanka master jawaariya ka hadalay may arey unu dadweynaha Soomaaliyeed antan fadhiina guuhiyoonay ku turkutaankii isku wadaan ii barbaankii wadaan iska dijiyeen ari guuhiyo iyo walayo ka owaadeen iyoonay walayo tawdaan anta bil soonay areen marka may arey isdijiyeen unin magon isdijiyeen ari markii isoo araasan adeega jira hata ka hor balaan doorna dhaankii maqnaay wuxuu war soo dheelmo war heede Mustaf Luxulow baarlamaanka ayuu ka hadlay wuxuuna yiri markaan xil waayay anigu waan isduray buu yiri marka wuxuu inta raacay wuxuu yiri wasiiradii Xasan Sheekh ha iska sabraano ha isduraano yiri ayagana ilaa inamayaha ma ogeyn xil jeclidu waxay leeyahay ilaa cirbad lagu daaweeyo saaxiibayaalo faleebadaas inta laga heli kara dad badanaaba u baahanee war sawir kugu dhacday waa Salaad Cali Jeelin ninka hadlay wuxuuna yiri Soomaalida waxaan ka maqluul leeyahay Itoobiya dadka haysatay argagixisana la dagaalamaysaa laakiin anigu waxaan ka mid ahaa dadkii ugu horeeyay ee soo dhaweeyay Itoobiya dalkana keenay cid waa maasantaa ilaahaysana maana arkin marka waa yaabanahay Soomaaliya ma wax u dambeysay Itoobiya keenay in isku mahad celiyo maasaad wuxuu yidhi anagii Xasan Sheekh jigjiga waa ku soo dhaantaynay waa noo lagu dhaleeceeyey laakiin kuwa hadda qalbi dhagax dhiibay ma la dhaleeceeyo iyaga war odagaan qaylada weyn laniyo qalbiga madoobaadeen naga hor wadaniyo war nimayahu Soomaaliya waa hoog oramadii 40 Soomaaliya ayay shalay kaliya dileen waxaana la yiri dadkay laayeen niyu boolis baa liira war waliga sargaal asluuba ma arkin nabad geliniyo war hadaadan arkin xabsiga dhaxa ku baran doontaa waryaalahan warba mantika haya meesha oramada lagu dilay adeer waa Soomaaliland adeer waxaan ka calaysnayn dadkii tirada badnaa ee ay ku laayeen meeshan hawaday la yiraahdo ee jaadka laga keeno war heeda war ma haysiine markii ugu horeysay Soomaaliya lagu arkay Dhuusamareeb marka wadaadkii Shaakir ahay hadii Itoobiyan laga waday Amisom loo geeyo talow taladiisa ma sii jireen war adeer Itoobiyan loogu bedelay cid kale looma keenin waradu aranta qaadkii aabaay abel oran jiray hargeysa saddex shama saga yimidba war Mareykanka waxay dhaheen 6 argagixisahan dilnay waxayna leeyihiin duqeynaan ku dilno cirkaan ugu soo dhacnay meeshan ku galnay waa shabeellada hoose anigu waxaan la yaabay buug feerka laga furay Muqdisho feerahayda xanuun inta buug oo meesha la keenay farmaajo ku sawiran marka sawirada farmaajo ma waxa la isleeyahay buugta ku gadmeen ma sabaashu waa kambeyn dadban war adeerow ka fiirsan waxa ku hadlayso waa afdaboolan dahabe waa kan oo kale midka ku fiican in la dhiibo war heeda wal mooshiidina war dalka Singapore bilaamay haliimo leeraa madaxweynaha kuwaliya leeri dadkana aad iyo aad aan dhirfanyeen wal niyasiya leeyin wal niyafta iiliya leeyin walaal waa wadanka Uruguay wadanka la yiraahdo ka tirsan Latin America waxa islaanta waa yeelka oo jamhada ka tirsanayd ay madaxweyne ku xigeenka noqotay dadka beenta ka dhaafan iyo qodayo kiikigle wariya dadkaas jabadii lankii hogaamiyay madaxweyne kuwaladan kiidina madaxa jawaan angiliyo haytan wariya hoy xaliim xaaskay waayaan yaanan gafuurka tumina haw gafin war abtiga u dacwoodniyo maalinkaas meeshan baroor ku haynaniyo war abtiga u dacwood raxma xaashi wiilkeeda hadii lagu gafo wallahi feer bal kala taali doona bilaan badana ma meel ma dhalnay baysan xaliim iyo hariijida sama meel war horta haytan iska ilaali